markale barnaamij cusub وأنيقو رملة عبد القادر حسن iyo anigoo Firdaws Maxamed Yuusuf isbuuca waxaan soo diyaarnay sheekooyin aad u xiiso badan leh sida maalintayda akhlaaq wanaag wararka ciyaaraha iyo su'aalo adinka idin weydiin doonaa maxaa ka taqaanaa maalmaha xurriyadda ee markastuu dabaaldegno 26 Juun maxay u taagan tahay sidoo kale 27 Juun iyo 1 Luulyo maxay kala duwan yihiin jawaabta aan idin siiyo goyma liwanaye liyangi liwanaye lixilawadaga goyma liwanaye liyangi liwanaye lixilawadaga goyma liwanaye liyangi liwanaye lixilawadaga goyma liwanaye mali hanolado 26 Juun 63 sano ka hor waa markii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed laga taago calanka Soomaaliya magaalada Hargeysa beerta xurriyadda ayayna ahayd meesha ugu horeysay ee laga taago calanka Soomaaliya maalinta ugu dambaysa ugu weyn ee 1 Luulyo Soomaaliya waxa ay heshay laba guulood oo aad u waaweyn waxa ayna kala yihiin in ay Soomaaliya xornimada qaadato oo ay la midowdo Soomaalidu ku عبد الناصر حسن عبد النور دقمل الديني عبد الناصر مانتا محاود والدقي مانتا مانتا الصومالي حرمت خالنا صالح لا تنجو أنا مانتا صومالي حرمت قادتي كوشي يا كوشي صومالي إن حرمت قادتي كوشي الدينا أنا أوجي مانتا هو رسمية عبد والدقي سوق مستقيمة وراكسو مانتا هو رس هست عنك ملوقات بتاع ملوقات Somalia, Somalia, Somali bane, Somalia, Somalia, Somali bane. Jiri dawana ne hamari dolo gode gida kirai garisa. Dadki makajig jigan dare ma maulat kinwan uili alap tangkwaya. Oyo, wan hadal haya, lap tangkwaya. Oyo, wan hadal haya. Sama sentai. فيري halka siido dhan inta lagu qaban karaa magaca Yusuf intee degan tahay Arfan yaa ku sheegay maanta inay maalinta xiriir tahay magacaaga marka aad xogida magacaaga intee degan tahay Arfan maanta maalinta xiriirda waa faraxsan tahay inay maalinta xiriirda tahayna yaa ku sheegay waa barnaamijka faras magacaaga أدنى عبد الرحمن رواية ما أنت ما أنت حرية وعم تفرح سنتهاي إلى دبالتي سنة الفرق ما أنت حرية مكسور دبالتي بس ما أنت أقول ورسو ما أنت أيوه ورسو فرحة هذا مرسو كل كرا ولا Somalia tosto iskutiisene dadkiina taageero waligiinay
nolosha carruurtayda iyo kuwa ku nool magaalada miyay ku kala duwan yihiin. Midkeena waa ahaan u wanaagsan dhanka carruurta, korriimadooda maskax ahaan, caafimaad ahaan iyo weliba dhaqan ahaan. Weydiimahaas iyo kuwo kaloo ka badan waxaad kaga bogan doontaan warbixintan. nolosha carruurta ku nool miyiga. Hadiyadaha ugu qaalisan ee Ilaahay addoommadiisa siiyo waxaa ka mid ah carruurta, haddana ma helaan korsiimo aad u wanaagsan. Ubadku waa iftiin ay ku ildoogsadaan waalidiinta dhale, waxa ayna kaalin aad u weyn waalidku ka qaataa korsiimaha carruurtooda. Miyiga eray ahaan waa eray Soomaali ah, waana wixii ka fog ama ka baxsan magaalada. Waxaa inta badan Soomaalidu ku dhaqdaan xoolaha. Eray ahaan magaalo waa eray Soomaali ah, waxaana soo gaara qof waliba oo safar ah haddii uu u imaan lahaa ganacsi in uu hubiyo caafimaadkiisa iyo in uu wax ka barto. Fursadaha ay helaan carruurta degan magaalada waxaa ka mid ah in ay helaan waxbarasho free ah, isbitaal ay kala socdaan caafimaadkooda, isdhexgal bulsho iyo wixii la mid ah. Sidoo kale carruurta miyiga waxa ay helaan hawo nadiif ah sababtoo ah miyiga dadka ku nool ayaa aad u kooban oo ma lahan kawaari wasakhaysa hawada deegaankaas. Waxa ayna helaan oo kale caano saafi ah, hilib, khudrad kala duwan, kuwaasi oo aad ku heli kartid lacag la'aan ama qarash aad u yar. Carruurta ku nool miyiga noloshooda waa mid adag maxaa yeelay ma helaan waxa ay u baahan yihiin waqti waliba. Haddii ay noqon lahayd waxbarasho, ugu dambeyntii carruurta ku nool miyiga waa dhaxalkii waddankeena hooyo maxaa yeelay waxay haystaan dhaqankii dhabta ahaa ee aabbayaasheen, afkii iyo wax soo saarkii iyo waxyaabo kale oo badan. kusoo dhawaada xubintii maalintayda. السلام عليكم أصحابتي وأنا سلامي من الإدواء وأنتو مانتو ومالنتي يعني ستصل مانتو ماشان سحلو يو بدل ستصل صبح سريرتا أنا جيفتو بومب لواي هبينتي يستادي إلى تن أبايا جيفتو أبايا تو مقامتا هاي subaxdii martaa kasoo taco hoodaa qabtaa, salaadiya dutaa hoodaa qabtaa, istuulna waa dhigtaa, dusina waa dhigtaa. Istuulta magaciisu waa Jaabir bin Xayaan. صلاة بعدها ألعاب الدنيا بعد استولتي على وحيرا جوجودا بعد فيديو طلعتوها بعد أكتر تطلع على صارت بعد طلعتوها مرتطوط بعد أكتر تطلع ماشي يلا مشجرات ماشي تطلع صارت طلعتوها dadka waxay soo qorayaan dusi aad dusi story waxaan
stuudiyo siin barta. kusoo dhawaada xubintii akhlaaq wanaag. السلام عليكم kusoo dhawaada barnaamijka Faac cusub. maanta waa maalin jimce waxaa waqti la qaadan doonaa carruurta halka usoo dalxiisata. Ani waxaa weydiin doonaa xubinta su'aalaha ee barnaamijka Faac cusub. Anna waxaan weydiin doonaa xubinta akhlaaq wanaag ee barnaamijka Faac cusub. السلام عليكم. وعليكم السلام. magaca موليد. ma ku faraxsantahay inaad kusoo muuqato barnaamijka Faac cusub? ها. waxaan ku weydiinaynaa su'aal sida tan u dhacayso sidee lagu noqdaa qof wanaagsan? inaa dadka iga waaweyn ixtiraamo, inaa shanta salaadood iyo tukado, iskuulka markaa joogo inaa qof caynin. waxaa qof oo fiican lagu noqdaa inaa shanta salaadood la tukado, in ilaahay laga cabsado, in waalidiintaadu waxay ku dirsadaan inaa loo qabto, inaa waxbarasho waa dhigtaa iskuul iyo dugsi. waana ku faraxsanahay inaa dhigto. waxbarashada ma jeceshaa marka? haa waa jeclahay. dugsi ma dhigataa? waa dhigtaa. iskuulna ma dhigatido? maadadee u jeceshaa marka maadooyinka? Soomaali. maasha allah. assalaamu calaykum. وعليكم السلام. kusoo dhawo barnaamijka Faac cusub. وكده magaca حمزة حمشر. sidee lagu noqdaa qof wanaagsan? وأنا والدك أخلاق ويالك صلاة نادي كتير والدك كان حشوسي كان حشوسي سكول كادي يلا بعد maasha allah. dugsi ma dhigataa? وادكتا iskuulna وادكتا salaad ma dukataa? وادكتا meeqay salaadaad dukataa marka? شنت maasha allah. maadaday u jeceshaa marka? تربية أخلاق علوية صلاة نادي كتير والدك بار ونقطت وحال ولو درس قوتت وحاول بوصل كذا وحلي درس صوتها وحاول بوصل ها والدينتي وخبرتها وحضنتها وحكوا لها أمريكا خاتها وحكوا مخلة. assalaamu calaykum. kusoo dhawo barnaamijka Faac cusub. magaca أنت inta sidee loo noqdaa qof akhlaaq wanaagsan? hooyadaada waa inaad gabar fiican u noqotid, hawsha ay ku dirtana u qabatid, dugsigana aadid, waxbarashadana aasin. dugsi ma dhigataa? haa iskuulna may dugsiga intee maraysaa qur-aanka? iqra. maasha allah. salaada ma tukataa? waa tugtaa. shanta salaadood tukataa maano? maasha allah. hooyadaada waa inaad gabar fiican u noqotid, hawshana u qabatid, hadday ku tiro dugsiga aad aadid, waxbarashadaadana aad samaysid, haweenka inaad dhaaftid, ilaahay ka cabsatid, salaadaadana inaad tukatid. hooyadeeda waxay ii dirta ayaa qabtaa, dugsigana waa aadaa. hooyooyinka waa inaa waxay ku dhahaan qabatid. markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii barnaamijkeena u dambeysay ee su'aalaha. kusoo dhawo barnaamijka Faac cusub. waa ku dhawahay. magacaaga saddexan? Sabriin Abdicasiis Maxamed. saabiriin waxaa ii sheegtaa wax ilaa ay madaxa laga garaaca aan ahayn aan soconaynin. musbaar. kusoo dhawo barnaamijka Faac cusub. waa ku dhawahay. magacaa Faadumo Cali Cabdulaahi. faadum waxaa ii sheegtaa wax ku daba soconaayo aana kaa hareynin meel kastaa lugta dhigtid oo ku daba soconaayo oona dhaqaaqaynin. dhulka. waa mahadsantahay. kusoo dhawo barnaamijka Faac cusub. barnaamijka kusoo dhawahay. ay magacaaga saddexan? cabdinajiib cabdiraxmaan maxamed. cabdinajiib waxaa ii sheegtaa wax 4 farood iyo 1 suul leh oo nooleen. galoofusta.